يا شبابا مدري ولد بجاجك مدكان لياشا ما معلمينتا mise dawladda askariga amniga sugaya ayaaba ah wagaas shanta koontar waxa ka jiray hay'adda koofi oo ay boor waxaana shaka ku jirin in dad mas'uuliyiin ah dawladda ka tirsan ay kooxda la leedahay wada shaqayn. We located a large quantity of ammonium nitrate which is used in the production of explosives. aaladaha laga sameeyo qaraxyada soo galitaanka dalka ay soo galaan oo fududaatay taasoo ay kamid yihiin maartay waxyaabahan loo yaqaan fertilizerska oo lagu bacrimiyo beeraha waxaan ku tusaysaa inuu soo arko inuu yahay milkiilaha dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda ka yahay sharcigiina uu ka talaabsanayo magaalada Muqdisho waxaa lagu gaaray go'aan khaarajin ah si loo fuliyo waxa uu iskaashi dhex maray kooxo kala fog balse isku ujeeda ah hal cadow oo ka dhaxeeya ay u qalab qaateen inay ka takhalusaan waa bartamaha Ramadaankii tagay 19 May 2019 xilli duhur ah waxa garoonka Muqdisho ka anbabaxay Cali Dubad Nuur Rasiyan oo ku wajahan Guriceel Cali waa hagaha Maxamuud oo sida naf haboosan oo jannadoon ah balse duul kale ay ku shaqaysanayaan bartilmaameedku waa Sheekh Shaakir iyo hoggaanka ahlu sunna oo u horeeya Macallin Maxamuud fagaara ku yaala magaalada Guriceel oo lagu xusaayay ciidankii ahlu sunna ee ku dhintay dagaal suufiyadu ay la galeen al-shabaab ayay ku sugan yihiin sida uu qorsho ahaa waxba uma aysan dhicin ninkan doonaya inuu sharciyo ay u suurtagal weysay waxaana durbadiiba gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka waxaana qofkan oo ay ka ciladoobeen fiilooyinka xiriirinayay walxaha ku xirnaa ku xoomay askar badan oo si hal Cali Dubad iyo ismiidaamiyaha waxa isku xiray nin magaciisa oo ku sheegay xaaji oo ka tirsan qaranka oo tabisay waxa ay wareysatay Cali Dubad balse waxa ay u baahiyeen warkii intii la xiriirtay al-shabaab dawladda federaalka gacanta ay ku lahayd waa laga reebay Cali waxa uu sheegayaa magacyada mas'uuliyiin xilal haya oo arrinkan ku lug leh oo ugu horeeyo adeerkii Cabdi Nuur Siyaad oo la shaqeeya wasaaradda amniga xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo xiriiriyo ah madaxtooyada taliyaha laanta socdaalka Maxamed Aadan Koofi iyo taliyihii qaybta sirdoonka ee Nisa Sakariya Ismaaciil aniga Cabdi Nuur iyo dawladda federaalka Cabdisaaq Cali Mire dhikaariyada iyo baabuurta ee uga qaaday dawladda federaalka laba gaari uga qaaday go'aagaasna lacag $5,000 loo qoray saa maqlay aniga oo mushaar aan arkin ma ogtahay dhikaarka hadda oo tana wasaaradda amniga waaye asaga u sameeyay intaasaan ka ogahay hay'adda oo ka qaato mushaarka oo siisa waxa ka hay'adda oo ka qaato waxaa looga amray ninka la yiraahdo Koofi waxaanu aaminsanahay inuu qarax siyaasadeed ahaa waxaanu aaminsanahay inuusan siyaasad ka marnayn laakiin Soomaali waxaan leeyahay Soomaaliya dadka iyo dalku waa in ka dhaxeeya heleeshiyo la isma dhamay karaa qorshayaal dawladda federaalka ay ku wajahday ahlu sunna oo galmudug awood ballaaran ku lahayd ayaa waxaa ku jirtay in laga taqalluso hoggaanka ahlu sunna isku daygaas markii uu fashilmay waxaa xigay heshiis beenaad siyaasadeed oo lagu hoday culimada kaasoo hubka looga dhigay awood ciidan in loo adeegsaday ayay ku soo gabagabowday hadda Dhuusamareeb waxaa ka jira cabsi laga qabo al-shabaab taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa iscasilay kadib markii uu sheegay in xabsiga laga sii daayay dad lagu tuhunsanaa al-shabaab wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adda amniga iyo al-shabaab ma ahan wax hal dhacdo ku eg halkan waa wadada Maka al-Mukarrama waxaa ka dhacay qaraxyo lagu weeraray hoteelo maqaayado iyo xarumo dawladeed dhiigga shacbiga waa laga meeray balse waxaa ku haray haaraha iyo burburka qaraxyadu ay sababeen hoteelka Maka al-Mukarrama oo sita magaca wadada wali waxaa ka muuqda burburka weerar sanad ka hor lagu qaaday 28 February gaari SUV ah oo ku qarxay ayaa burburiyay dhowr dhisme oo ku yaala aaga awoodda qaraxan iyo dhowr kale oo ka dhacay Muqdisho baaris lagu sameeyay ayaa tilmaamay in qaraxyada argagixisadu sameeyaan ay sii xoogaysatay farsamaynta qaraxyada maadooyinka kiimikada ah ee ay isticmaalaan waxay ahaayeen kuwo ay kala soo baxaan haraagii minooyinkii military oo dalka yaala
hub sharci darro ku soo gala waddanka iyo hubka ay ka furtaan amisom al-shabaab hadda waxay isticmaalayaan chemicals ka awood badan kuwii hore waxaa sabab u ah dhowr waxyaabood oo ay ugu horeyso aaladaha laga sameeyo qaraxyada soo gelitaanka dalka ay soo galaan oo fududaatay taasoo ay ka mid yihiin maaragtay waxyaabahan loo yaqaano fertilizerska oo lagu bacrimiyo beeraha waa la controli jiray intii annaga aan joognay hay-adda nabad sugidana waxaan samaynay inaan ka mamnuucnay inay ka soo degaan dekedda muqdisho haddii ay soo degayaan dadka ay soo degayaanna maaragtay la diiwaan geliyo isla markaasna laga qaado sample si DNA-ga haddii beri ka maalin bacrimintaas qarax loo adeegsado si aan u dabagalno soo qabano dadkii ay u soo degtay goobo ay qaraxyo ka dhaceen ayaa waxaa baaris ku sameeyey laan ka tirsan FBI-da Mareykanka oo taxliilisa qaraxyada argagixisadu adeegsadaan taxliilinta ayaa waxaa lagu helay cadeymo muujinaya isku darka potassium nitrate iyo nitroglycerin labadan maado ayaa waxaa raaca dhuxul gaas iyo biro 25 Juun 2019 ciidanka badda Australia ayaa qabtay doon ku wajahneed Soomaaliya oo sidee hub sharci darro ah iyo fertilizers We located a large quantity xaddi badan oo rasaas ah iyo 5 oo ammonium nitrate oo loo isticmaalo samaynta waxyaalaha qarxa which is used in the production of explosives. waxaa jira doomo tan la qabtay la mid ah oo toos u degay dekedda Soomaaliya iyagoo geeya chemicals lagu gubo hooyooyinka iyo carruurta Soomaaliyeed waxaanan jirin controlkii controli lahaa oo ku qaban lahaa marka la keeno dekedda la keeno ilaa bahashan ragga keena haddaanan laga warqabin oo aanan maaragtay la baarin maxaan ku yidhahdaa waa fududaanaysaa inay usoo degto oo ay gaarto kooxda shabaab isla markaasna ay ku sameeyaan qaraxyada bacrimintaasna maaragtay baaritaankii lagu hayay iyo diiwaangelintii intaba ma joogsateen marka waxaad moodaa in la fududeeyey fertilizers waa maadooyin chemicals ah oo loo adeegsado bacriminta beeraha waxaa lagu daraa ciidda ama lagu buufiyaa dhirta hay-adaha Soomaaliya ka taageera beeraha fertilizers ay waddanka soo geliyeen oo lagu wareejiyay wasaaradda beeraha ayaa ka mid noqday walxaha argagixisadu u isticmaasho qaraxyada baaris la xiriirta arrinkan oo su'aalo laga weydiiyey qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha maalmo kadib May 9 2019 ayaa waxaa la dilay Xuseen Muuse Maliisha oo ahaa agaasimihii wax soo saarka wasaaradda beeraha dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa sheegta intooda badan balse waxaa jira gacmo kale oo fuliya August 2018 Fahad Yaasin ayaa madax ka noqday hay'adda NISA wixii markaas ka dambeeyay maxaa dhacay maxaase isbedelay NISA waxay wajahday ugaarsi aan weli noociisa hore loo arag 8 bilood gudahood waxaa la kharajiyay qaar ka mid ah xubnihii ugu firfircoonaa nabad sugidda 22 September 2018 Kabtan Aamina Xuseen Xasan waxaa la toogtay iyadoo ku jirta gudaha fasalkii ay wax ku baranaysay ee jaamacadda Soomaaliya Aamina waxay muddo 10 sano ah ka mid ahayd ciidanka dharcadda Soomaaliya xilligii la dilayay sidana loo xaqiijiyay waxay gacanta ku haysay kiis lagu baarayo sarkaal ka tirsan NISA oo lagu soo eedeeyay inuu al-shabaab qaraxyo u fududeeyay Axmed Soodi madaxii qaybta wadaagga macluumaadka qaaska qarax loogu xiray gaari ay wateen isaga iyo sarkaal kale oo marayay iskuiska Jubba ayuu ku dhintay Cali Canshuur February 2019 ayaa la dilay waxa uu ahaa taliyihii ciidanka gorgor ee NISA waxaa loo bedelay ciidanka booliiska degmada Hodan markii la kala diray ciidankii nabad sugidda al-shabaab waxay saameyn muuqata ku leedahay gudaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA waxaana jira shakhsiyaad iyo saraakiil hay'adda ah oo si dadban ula shaqeeya al-shabaab kuwaasoo u fududeeya qaraxyada iyo dilalka waxaana shaki ku jirin in dad mas'uuliyiin ah dawladda ka tirsan ay kooxda la leedahay wada shaqeyn taasna waxaa marqaati ka ah in ay kooxda shabaab maalin cad ay bartilmaansadaan dad gaar ah oo dawladda u shaqeeya ama sirdoonka ka tirsan in ay dilaan isla markaasna ay video ka duubaan maaragtay waa waxaan horey loo arag horeyna loo maqal waxaa internetka lagu faafiyey sawirrada iyo magacyada qaar ka mida xubnaha qarsoon ee sirdoonka qaranka
kuwaas oo halis soo wajahday darteed isaga cararay shaqadii ay hayeen. waa kan sarkaal ka mida oo inoo warramay. waxay dantuna baday markii aan arkay in saaxiibaday mid loo dilay, magacyadeennii iyo sawiradeennina ay internetka daadsan yihiin.